Assalaamu calaykum guys, kusoo dhawaada casharadeenii baro cunooyinka dalkaaga ee aan ugu barateen haadahan oo kale inaan soo gudbino. Maanta waxaan uga hadlaynaa 3 cunno oo aad ugu maarmi karto isticmaal kiimikaalka saad u qurxiso wajigaaga. Ma tahay qof u baahan inuu wajigiisa ka nadiifiyo waxyaabaha finan ku yaalo. Ma tahay qof jecel inuu ka maarmo isticmaal kiimikaalka si uu u qurxiyo wajigiisa. Ma tahay qof u baahan inuu wajigiisa ahaado mar walba inuu qurux badnaado. Haddii ay jawaabtaadu haa tahay fadlan muuqaalkan soo socda ila daawo. Haddii aad ka mid tahay asxaabteena ku xiran janaalkeena fadlan subscribe noo saar gambaleelkana saaro mawduuca isleeda uu ku anfaca commentiga noo reeb. Cunnada koowaad babayga waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ugu fiican ee qofka bini'aadamka wajigiisa uu ku qurxin karo. Babayga waa shay kaliya ee ka kooban waxyaabo loo yaqaano waxyaabo remove gareynayo xirgaha ku xiran babayga oo aniga aan ku sameeyay wastage ka aan daadana waxa sameeyay waa shiiday waxa ku shiiday baalka loo yaqaan qalaadada mar alla markaa shiidin waxa uu isticmaalay inaad marsid wajigaaga wajiga see loo marinaa waxa wajiga u marsanaya babayga qaybaha oo adiga finada ka haya sida dhinacaan iyo camanka labada daam dhinacaas u badan finan ka yimaado dhinacaas waxa uu isticmaalay babayga mar alla markaad marsid kadib waxaad u sugaysaa saacado ama laxdaad haddii aad isticmaalaysid babaygaas aad geshid kitchenkoo kale ama jikadoo kale aad wax dab aad la tacaamulaysid oo kale ma dhici karto inuu wajigaaga ka soo muuqdo ama aad dareentid kuleel fara badan aad dareentid kiimikaalka waad u maarmi kartaa haddaad kiimikaalka isticmaashid oo aad jikada geshid ama aad banaanka cadceed u soo baxdid oo kale waxaad la kulmaysaa dhibaatooyin ay kugu haysa cadceedda laakiin babayga waa waxa kaliya oo bini'aadamka ugu maarmi karo ama si baqaasatan gabdhaha inay u isticmaalaan inay ku qurxiyaan wajigooda waxaad u isticmaali kartaa inaad wajigaaga u isticmaashid. Cunnada labaad qajaarka waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ugu fiican ee gabdhaha u isticmaalaan inay ku qurxistaan facekooda. Asoo waxaa jiro kareem ahaan loo diyaariyay midkaasita waxa ka kooban yahay kiimikaal waxaad u isticmaali kartaa qajaarka inaad asigana qaybta dhexda ee qajaarka ku jira inaad soo jaratid aad jeeditid aad isticmaashid inaad wajigaaga aad ku kalin kareysid waxyaabaha lagu darsado mar alla markaad qajaarka isticmaalaysid waxyaabaha uu ka kooban yahay ukunta oo kale saliideeda baalka guduud jaalaha ukunta waa iska tuure waxaa isticmaalaysaa inta yar oo biyaha oo cadaanka isticmaalaysaa si uu kugu sameeyo dhegdheg adag soo wajigaaga u dhigi karo waayo mar alla markaad shiidid wuxuu noqonaa bahal oo dareere waxa laga yaabaa in wajigaaga kasoo dareero waxaad ku adkay kartaa baalkaas ukunta baalka guduudan iska daadine inta yar oo biyaha isticmaalaya ku dhex dare waa ku adkayna waa qase waa isticmaalaya wuxuu nadiifinaa waxyaabaha muqallafaadka wajigaaga ka kooban yahay wajigaagana ma ka halaabayo haddaad tahay qof xasaasiye qabo kale oo wajigu kale problem ku imaanayo wuu u fiican yahay wajiga wuu nadiifinaa wajigaagana isbedelayo maqaarkaaga dabiiciga ilaahay kugu abuurna masuulinaysid waxyaabaha aniga noo sabab waayo waxyaabahan tirada badan waxa waaye because of ma isticmaalno vitaminska jirkeena uu u baahan yahay ma isticmaalno maadaama aan isticmaalin vitamins jirkeena uu u baahan yahay waxaa la rabaa marka inaan vitamins ka qaadan as external u qaadano wax walba oo maqaarka loo isticmaalayo wuxuu ka kooban yahay vitamin loo yaqaan vitamin E oo ka kooban yahay vitamin E gaas jirkeena ka maqan vitamin E deficiency jiro marka cunooyinkan oo hadda aan ku sheegay sida baalkan qajaarka oo kale wuxuu zuulinaa waxyaabahan oo agoolka oo korkeena kor saaran asaa isticmaalaysaa waxaa ku darsan kartaa sida waxyaabaha buhaaraadka kale qusadoo kale ama huruudka kale naturalka oo waxyaabahaas oo kale oo plantska laga keenay waad isticmaali kartaa wajigaaga inaad ku qurxisid wax oo daawana kuma jiraan waana u dhawaa kartaa waxyaabaha heerkulka cunnada saddexaad liinbalbeelmada waa waxyaabaha kaliya oo loo isticmaalo face washka kale mar markaa u baahan tahay wajiga inaad ka nadiifisid waxyaabaha finanka ama waxyaabaha wajigaaga oo nabraha ka soo baxayo nabrahaasaa ka nadiifinaya nabrahaas waxa ugu fiican yahay wuxuu ka kooban yahay asigana fitamiinaad kamid ah fitamiinaadka jirka uu u baahan yahay wuxuu sameynaya balbeelmada mar alla markaad isticmaashid oo kale ama haddii sometimes aad samaysid maqaarka qolofka liinbalbeelmada inaad suuliyi geshid oo kale aad ku rugatid foolkan ama labada daan wuxuu ka nadiifinaa marka waxyaabahan muqallafaadka wuxuu bilaabaa mar alla markaad qabaystid haddii aad 10 daqiiqo oo kale ama 10 minute kadib aad isticmaashid inaad qabaystid liinbalbeelmada wixii muqallafaad wajigaaga waa nadiifinaa wajigaaga wuxuu noqonayaa inuu waji qurux badan yahay marka asigana waa wax ugu muhiimsan ee loo isticmaalo in wajiga lagu nadiifiyo marka waxyaabaha oo sababa wajiga in la nadiifiyo waxaa koosgareeyo jirka bini'aadamka wuxuu soo deeyaa hormoneska laba nooc waaye in hormoneska oo as excretion loo bixiyo oo qofkan oo marriage noqdo oo hormoneskiisa oo la tafaaculo oo decreasing of ku dhaco naqsil hormoonaad oo ku dhaco hormoneskan oo qanjirka glyphosate dheecaanka soo deena iyo relationship ka dhaxeeya testosterone
iyo progesterone-ka labadaas hormone relationship baa ka dhexeeya haddii oo testosterone iyo progesterone isticmaalkiisa bilowda gabadha haddii la guursado waa isbedelaya waa aragtay wejigeeda wuu soo qurxoonaana hormoneskana waxay yaraanayaan isticmaalkiisa oo yaraana wejiga waxyaaba dhinaca camal ma soo deynayo haddii oo wiilka oo guursana sidoo kale waxaa yaraanaya muqallafaad dad waxaa jiraan wejiga si dabiiciyan ugu jirin oo dhaxal oo from parents ay qabaan oo halkiis ka weyn ahaan jira asigana waa naqanaa qofkaas oo kale waxyaabahan uu isticmaali karaa aad u anfacaa wejigiisu wuxuu naqanaa weji liishi ah waxaana kaloo iska ilaalisaa nidaamka jiifka oo kale waxyaabaha ugu badan oo finqooqa keena waxaa kamid ah nidaamka jiifka qofka oo qaldan jiif oo sunno oo nabiga jeediyaa jira salawaatullahi wasalaamu caleyh in loo jiifto garabka midig haddaad saqda dhexe dildiloontidna garabka bidixa u jiifin kartaa oo markaa soo gadoonta garabka bidixa u jiifin kartaa ducooyin la akhrisaa jira laakiin dad waxaa jiraan oo badanaa xabad u jiifto kale xabadka waxay sababee waxyaabahan finqooqa sababee rag iyo dumarba haddaad xabad u jiifatid finqooqa nabraha wejiga wuu ku badanaa isfiiri ma tahay qof xabad u jiifta haddii aad tahay qof xabad u jiifta finqooqa nabraha oo jirkaaga ma kaa bixi doono isbadbaadi sida diinta ee sheegta raac midig u jiifto adoo adkaartaada akhrisanayo dan bidix kusoo qatimo waana mahadsantihiin cashirkan intaas kusoo gabagabaynaynaa haddii aad janalkeena ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar muuqaal alla muuqaalka islaada waa idin anfacaa commentiga noogu reeb waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu